barnaamijkan ayaa waxaa iska kaashaday EAG iyo wasaaradda cadaaladda waxaana fulinaysaa Aadam Academy toddobaadka hore barnaamijka ayaa waxaan ku wareysanay garyaqaano waxaan ka hadalnay barnaamijka meheriyada cadaaladda muhiimadda uu leeyahay toddobaadkan balse waxaa inoogu martay barnaamijka garyaqaan guuleed difaac oo kamid ah bahda garyaqaanada Soomaaliland waxaanu kaga hadlaynaa hababka kala duwan ee bulshada cadaaladda oo yeeshaan dacwadaha loogu galo oo ah mid islaamiga mid dhaqanaha iyo waliba mid dawliga saddexdaas ayaanu ka wareysan doonaa garyaqaan bal saddexdan hab sida ay dadka u saameeyaan bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan dadka la haybsooco iyo waliba waxyaabaha ku kala duwan yihiin si qoto dheer nooga waran bismillaahir rahmaanir rahiim Soomaaliland waxa ka jira saddex system markay noqonayso bixinta ama adeega cadaaladda oo ka kala imanaya taariikhda dadka Soomaalida leeyihiin muddada dheer markii hore Soomaalidu intaan gumaystuhu yimaan waxa lahayd nidaam dhaqameed ku noolaadaan oo soo jireen boqolaal sano soo jiray xeerar dhaqameed qabaa'ilku leeyihiin kadibna waxay nidaamka gumaysiga ka gadaal xorriyadda intii la helay qaab dawladeed abuuray waxa intaas oo dhan barbar socda shariicada islaamka xafiisyadii lagu xalilo khilaafaadka ku saleysan shariicada islaamka saddexdiiba saddex adeeg bixiye oo ka jira Soomaaliland oo dadkuna siyaalo kala duwan u aadaan iyadoo ku xiran tahay hadba ciddu halkay joogto midtalan meelaha miyiga iyo tuulooyinka dawladnimada ka durugsan waxa ku xoog weyn dhaqanka meelaha magaalooyinkana saddexdiiba way isbarbar galiyaan waxa laga yaabaa qofka magaalada caasimadda jooga ee khilaaf soo food saaro inuu odaga dhaqanka u tagi karo waxa laga yaabaa inuu iska deyn karo xafiis shariicada lagu garnoqo guddi culimada ay fadhido u tagi karo waxa dhici karta inuu hay'adihii dawladeed cadaaladda inuu tago marka saddexdii option ba mar walba way yaalaan waana is dhinac socdaan waxa taa dheer saddexda nidaamka cadaalad bixintu ma aha kuwo isbarbar cararaya mararka qaarkood way wada shaqeynayaan waxa dhici karta dacwad ku jirta dhaqanka gacanta ku haysan maxkamadda u gudbiyaan waxa dhici karta dacwad maxkamadda ku jirta in culimada loo diro waxa dhici karta inta badan ama mararka qaarkood midtalan maxkamadaha laftigoodu inay ku dhaqmaan shariicada islaamka markay dabaqayaan xeerarka ka yimaadaan shariicada islaamka marka saddexdii adeeg bixiye iyagoo saddexdiiba joogaan ayay haddana mararka qaarkood isla falgalaan ama ay wada shaqeeyaan xeerka shaqa dhaqanku marka loo eegay nidaamkeena Soomaalida waa ka ugu da'da weyn anaga fikirkayga odayadii hore dhaqanka Soomaalida qabiil walba meel jira dhibaatooyinka soo food saara waxay u diran jireen dadka ugu waaweyn ama wax garadsan dadkaasina markay dacwadda dhageystaan go'aan bay soo saari jireen go'aankaas ayaa noqon jiray xeerka ka dhaxeeya reerka marka cid walba oo ka soo kala jeeda reeraha marka go'aan ka soo baxay waxa lagu dhaqayaa go'aankii hore wuxuu ahaa waxa loo leeyahay maxay nooga yaalay hadday reer iyo reer kale tahay oo khilaaf soo dhexmaro oo go'aankaas kolka lagu dhaqaya marka reer walba wax yaqaanaa gudihiisa marka dhibaato soo dhacdo nooceedu hadaan ugu wahayno marka cusbayn wixii lagu dhaqi jiray iyaga iyo reer kale hadday soo dhexmartona way noqon kartaa hadday ugu tahay cusub tahayna go'aan bay ka soo gaaraan marka maxaa u asala xeerka dhaqanka saddex waxba u asala marka koowaad ma qorra oo wax meel ku qoran oo la eegayo maahay waa xusuusta dadka siiba dadka wax garadka waayeelka maskaxdooda ku jira mar labaadku waxa ku saleysan go'aamadii hore la gaaray xeerka hay'ad siiyay reeraha u yaalay mar walba in lagu dhaqmo hadaan markaa ugu bahayn ta saddexaadna waxa leeyahay joogto permanent cid joogto oo garto qaado sida dawladda oo kale maahe mar walba dhibaato yaalo cid la isla tagay reerka ka Soomaalida xataa gar waa loo wada islaan qof kasto markaa ka tirsan reerka ama reerahaas marka qaarkood reerihiisa iyo ka dhex baxdaa ee garta la bido geedka way fariisataa ama gar masaalaxa qaado garta masaalax waa mid aan la doonaynin dadka in la kala gooyo la isu soo dhaweeyo ama gar cadaawo oo sida maxkamadda kale lagu wada gooynayo oo midna guuleysanayo midna guul daraysanayo dadka qofka dacwadda dhinaca ka abaana optionska ikhtiyaarka leh gar masaalaxan ku qaadnaa mise gar cadaawo hagar bayna waa la bixiyaa wax la yiraahdo afi odayadan shaqeynaya markay go'aanka gaadhaana waa lagu kala dareeraa marka nidaamkaasi waa nidaam dhaqameed isbedbedela deegaanada ku kala duwan inkastoo magaca guud xeer dhaqameed la yiraahdo haddana deegaan waliba si gaara iyo hanaan gaara bay guurtidiisa iyo wadayadiisa iyo dhaqankiisu u shaqeeyaan waxay soo wadaagaan inuu yahay xeer dadka Soomaalida iska leedahay faa'iidooyinka uu leeyahay waxa kamid ah dadka ku kalsoon oo dadku maadaama weligood yaalahooda odayadani la joogeen garanayaan hebel yihiin in odayga aadaan bay jecel yihiin dadku aqoon fiican u leh sida dhaqanka u shaqeeyo si ka duwan dawladda nidaamka dawladda waxa laga inuu ka yahay shuruuc af kale ku qoran yahay dad loo yaraahan la fahmaynin inay dhinac ka yihiin laakiin dhaqanka qof kasta uu fahmi karay ta saddexaad uu jaban yahay lacag fara badan dadka kaga ma baxdo afraadna waxa weeye go'aan degdeg ah ayay soo saaraan go'aanadooda sida kuwa maxkamadaha kale wax sanooyin fara badan qaatay odayadu ma inta fariistaan bay maalmeeyo gudahood ay go'aan ku soo saaraan dabadeedna kulkaas halka lagu kala baxaa intaas waa faa'iidooyinkiisa muhiimka ah faa'iidooyinkiisa soo kordhay waxa kamid ah saddex mas'alo meel kamid waxa weeye go'aanada guurtida dadka odayada ay qaataan inta badan waxay ka eegaan waxa fadhiya geedka rag kaliya marka dacwooyinka dumarku qaybta kamid yihiin dumarka looma ogolaado inay soo fadhiistaan waxa matalaya qof laba oo la qoysta marka codadkii dumarka lama maqlayo taas waa qayb kamid ah arrimaha dacwadaha dumarku qaybkeenu kufsigu kamid yahay ma wanaagsana dhaqan talabaad
ee soo hoosgeli waxaa ka wada marar badan haddii dadka dhibanaha dacwadda ka ama dhinaca dacwadda ka beelaha la haybsooca yahay oo dhinacan dacwadda qaadayaan ay yihiin dadka soo jeeda deegaanadan haybsooca sameeya ha fikirkoodii kama bixin wax laga yaabaa inay haybsooci qayb ka noqdaan oo dadkii ay ku dulmiyaan taasina qayb bay ka noqonaysaa nidaamkan hadda casriga ah ee magaalada la yimi dowladnimada la bartayna faa'iido darrada uu keenay waxa weeye markii hore ee dhaqanka Soomaalidu keligii xooganaa qofka diida wax loo oran jiray geedka lagu xirayaa makaaniismi qabiilku ku qabtaan bay jirtay markuu garta laga helo laakiin hadda qofkii garta laga helay baa laga inuu meel kale tago marka waxaan jirin nidaam dawladeed oo xoojinaya qaabka garta odayadu soo saaran loo fulin karo marka dhibta saddexaad ee keenaysa waa xagga fulinta go'aankii haddaan dhinacyadii ku qancin inuu fulaa waxay qaadanaysaa waqti siiba haddaan la qorinin oo nidaamkan casriga ah runtii aan la waafajin marka nidaamka hore aan ka soo sheekinay nidaamka dhaqankeena ku salaysan ee xeerar kale ee qabaliga inta badan ka dhaxeeya nidaamka labaad ee dhinac socda waa nidaamka dawladda ka imanaya ama state-ka cadaaladda dawladda bixiso oo ay aasaas u tahay maxkamadaha xeer ilaalinta booliiska iyo qolyaha fara badan oo la mid ah laakiin saddexdaasi u weeyeen waa nidaam cadaalad rasmi ah iyagu maxay leeyihiin xeerar bay ku aasaasan yihiin dastuur xafiisyo joogtaa bay leeyihiin shaqaale la yaqaanona way leeyihiin dadkuna way u caawdaan awood dawladeedna way ka dambaysaa oo qofka matalan jibiya awoodaheeda waa la xiri karaa ama xoogagiba ayaa lagu fuli karaa marka la yiraahdo cadaaladda nidaamka cadaaladda rasmiga ama dawliga waxa laga hadlayaa mid dawladdu abuuratay oo ay leedahay oo maxkamadeena caadiga iyo booliiskeenna baashka tooniyay iyo waxyaabihii ay ka mid yihiin faa'iidooyinkeeda maxaa ka mid ah joogtanimada ay wax joogta ay yihiin waa ka mid oo ay mar walba joogaan meel gaar ah loogu tagayo in awoodii dawladeed ka dambayso matalan haddii lagu xukumo aadi kartid maxkamad aadid fulin inay leeyihiin xeerarkooduna inay qoran yihiin oo yihiin xeerar la raaci karo isku day kartid matalan kartaada si akhrisan kartid oo qofka sabab u sahlanaan karto ayaa kamid ah waxyaabaha faa'iidooyinka ee maxkamadaha rasmiga ama nidaamka cadaaladda rasmiga leeyahay waxa kamid ah caqabadahooda ama waxyaabaha faa'iidooyinka lahayn waxa kamid ah matalan meel walba ma joogaan halka dhaqanku yahay ku xoog weyn yahay meelaha miyada iyo tuulooyinka oo matalan miyiga iyo tuulooyinka Soomaaliya waxaana lagu qiyaasayaa haddii la isku celceliyo gobolladu inkastoo ku kala duwan yihiin 75% dadkeenu miyi iyo dhulka miyiga u dhow tuulooyinka iyo miyada iyo reer guuraa weeye marka la isku daro dadka magaalada degan ama urbanka 25% ama 25% kama badna inkastoo gobolladu ku kala duwan yihiin taa macnaheedu waxa weeye dhulka miyiga joogo dhan iyo dadka tuulooyinka joogna dawladnimadii ma dhawa hay'adii dawladeed ma arkayaan taas marka waa caqabad ay leeyihiin talabaad waxa weeye waqti dheer bay qaataa oo dacwadda maxkamadda ku gashay waa la kala rafcaan qaadanaya time bay qaadanaysaa dabiici iyo waxyaabo dheeraad oo keeniyaba waa kamid waa qaali oo qofka lacag baa looga baahanaya hadduu qareen qabsanayo waa ku lacag haddaanu qareen qabsan karaynin maxkamadda intuu yimaado waraaqaheedii daabacdo maalin walba uu joogo taasina waqti ayay qaadanaysaa arrimahaasaa kamid ah kolka waxyaabaha aanay caqabadaha ay ku tahay oo haddii aanay miyiga lagu fidin oo tuulooyinka lagu fidin qofka miyi jooga ay reer guraaga iyo buurta iska degan intaad u tagtid ma odhan kartid maxkamadaha ku kala garbax waayo maxkamaddii waxay u dhowdahay inay u dhowaato nidaamka rasmiga ee dawladda ku salaysan wuxuu la bilaabay waagii Ingiriiska dawladnimadan casriga ah ee dhulka iyo dawladdu isku xidhan yihiin Afrikaba waxa uu la yimi reer galbeedka uu la yimi Ingiriiskii baa yimi laakiin Ingiriisku maxkamadaha meel walba kama aasaasin garqaadidiisu waxay ku koobnayd magaalooyinka waaweyn marka wuxuu xoojin jiray in nidaamka dhaqanka lagu kala baxo waa meesha ay ku kala duwan tahay Soomaalida iyo Talyaaniga gumaysan jiray Soomaalida Somaliland ee Ingiriiska halka Ingiriisku isagu toos u dhaxgalay Ingiriisku maxallaha Talyaanigu Ingiriisku wuxuu jeclaa nidaam indirect ah oo xuqaasha ayuu xooga saari jireen gartooda qaadaan isaga nidaamka rasmiga laakiin waxaanu aasaasanay wixii ka dambeeyay 1960kii markii xorriyadda lagu dhawaaqay ayaa in Soomaalidu maxkamada ay leedahay iyo booliis ay leedahay ay sameysay dib u curashadiina kolkaas Soomaaliland waxay ka dhalanaysaa 1991 marka saddexda marxaladood baynu soo maraynaa waa gumaystihii waqtigiisii intii midnimada Soomaaliya iyo Somaliland lagu jiray iyo wixii 1990kii ka dambeeyay nidaamkan waa nidaam la yiraahdo xafiisyo ama ashqaas xafiisyadu way soo kordheen shareecada islaamka uu eega marka dadka iskhilaafka haya oo la yimaadaan marka way kala duwan yihiin shareecada laftigeedii oo ka hadli doonaa sida shareecadu u dhex gasho maxkamadaha iyo dhaqankaba iyo xafiisyada shareecada ku garnaqa xafiisyada shareecada ku garnaqa waxay ku badan yihiin magaalooyinka waaweyn sida Hargeysa waa guddi culimo oo xafiis furtay oo magac leh oo u jooga cidii khilaaf ula timaada inay garnaqaan waxayna u raacaan shareecada islaamka marka dadka waxa shardi waa inay ogolaansho bixiyaan oo si qoraal inay raali ka yihiin guddida culimada ama qofka culimada inuu garnaqo go'aankoodana ay ku garnaqayaan kolkaasay go'aan soo saaraan qoran iyagoo raacaya shareecada islaamka wixii ay ku kala xukuntay meelaha laakiin si magaalooyinka waaweyn ka sii fudsan waxa jooga culimo iskoodsaga jooga matalan sheekha tuulada jooga laga yaabaa dadku inay door bidaan inay garta u qaadaan halkii u tagi lahaayeen dhaqanka oo sheekhu noo garnaqado diinta islaamka noo geeyo kitaabka noo fur adaan ku garnaqnaa marka labada nidaam bay isugu jiraan nidaamkan yara casriyaysan ee magaalooyinka ee xafiisyada leh oo qofka fiiga yar laga qaadayo laakiin maxay ka samaysan yihiin waxay ka midaysan yihiin kow dhaqan maaha oo odayo dhaqameed u eegaya maxaa reerka u yaalay xeer maaha waa kow nidaam dawladeed oo dawladii ah
oo formal systemka oo maxkamadiyaana maaha laakiin waa cid labadaaba ka baxsan waa shiikha ama dhowr shiikha oo waxay ku garnaqayaanna ay tahay diinta islaamka u raacaya ogolaanshana ay rabaan inay cidda doonaysaa inay siiso waxay ku imanaysaa markaad matalan dib ugu yara noqotid haddaad eegtid dhaqanka waayo halkaan leeyahay saddexdu mar walba way isdhex galaan matalan haddaad dhaqanka ku noqotid odayada dhaqanku markay go'aanada soo saarayaan waxyaabahay eegayeen shareecada ka mid ah matalan qofaa daqar loo geysanaya markay doonayaan qofkan daqarkiisa inay ka garnaqaan ee cidda lagu leeyahay xukunka saaraan culimada u dirayaan waxna culimada ay soo eega daqarkan inta lagu xaqo waa 10 halaad buu leeyahay haddana xeerkii way weegan waxa inaga maxay inooga yaalay 10 kaagar waxa laga yaabaa inay inooga yaalin saddex meelood oo god la tuuro oo dadna dhaqanka la isdhex geliyo marka isdhex gelaysa maxkamadii haddaad eegtid marka xeerarka la sameeyo baarlamaankeena waxa dastuurku waajibinaya shareecada islaamka loo raaco marka xeerarkii baarlamaanka soo maray qayb lixaad loo kamid ah waxa waafaqsan tahay shareecada islaamka garsoorka laftigiisu dacwadaha uu qaadayo hadduu markuu xeer qoran waayo waxa lagu waajibinaya inuu shareecada islaamka ka soo qaato marka way isdhex gelayaan xeerarka qoyska oo kale waxyaaba familiga la xiriira furiinka guurka dhaxalka waxa soo dhan biyuurli waa inuu garsooruhu raacaa shareecada islaamka marka shareecada islaamka labadiiba way la falgelaysaa sidaas si la mid ah ayaa qofkan garta qaadaya marka shareecada eegaya marka formalka eegaya matalan gudidii waxa laga yaabaa dhaqanka magaalada joogtay hargeysa joogtay ee doonaysa dhaqanka ku eegto inay tiraahdo intaan dhaqan ku eegin maxkamadda qoraal laga soo qaadaa si aan awood u yeelano waa isdhexgalka saddexdu sameeyay laakiin tan kale aynu hadda ka hadlaynay weydiisay la xiriira shareecada islaamka mar walba in la fahmo inaan laga hadlaynin general shareecadii way general si guud shareecadii saddexdiiba way dhex gelaysaa oo dawladnimadiina way ku dhex jirtaa laakiin waxa laga hadlayaa xafiis private oo gaara oo qof muwaadin oo caadi oo dawladdu mushahar siisa aanu u fadhiyo aanu hayn mushahar siinin qofkaas oo gartan uu ku garnoqo si shareecada islaamka waafaqsan marka dhinaca dabeecad ahaan wuxuu la wadaagaa gudidii dhaqanka gudida dhaqanku waa dad caadi oo meel iska fadhiyo dawladda xiriir lahayn khilaafaadka xalisha halka gudidaasi mar walba ay awoodda saaraysaa in xeerka reerka eegto gudida khilaafaadka ee shareecada islaamka waxay awoodda saaraysaa in shareecada islaamka ay u eegto magaalooyinka waaweyn marka la joogo waa xafiisyo la yaqaano miyada iyo tuulooyinka marka la joogo laakiin xafiisyo rasmi ma aha taasina waa nidaam soo kordhay inay xafiisyo noqoto oo waxa soo kordhiyay inay ahayd korriinka ay koreen dadka siiba ganacsatada ah ee jecel yihiin mar walba in khilaafaadkooda degdeg loo xalilo nidaamka maxkamadeed ee waqtiga dheer qaadanaya aan la raacin ayaa keenay in la galo waxyaabahaasi jira dhaqanka xafiisyada shareecadu aanay gelin waxyaabaha faldambiyeedka la xiriiro dhan iyagu ma galaan way iska riixayaan maxkamadaha la gala wax dambi baa la xiriiro crime la galo talan boob dhac dil waxaas wax mar walba maxkamadaha qaadan way booliiska waa qayb ka ah oo qof la xiraya laakiin waxa qaadaya mar walba wax dabeecadiisu madani tahay hanti la isku haysto maaragtay shil dhacay oo kale dhici karta oo labadii qof leeyihiin shareecadu maxay ka qabtaa labadan qof yaman gardaran iyo waxyaabaha la mid ah dhaxalkii baa ugu muhiimsan dhaxalka iyo arrimaha qoysku arrimaha mar walba ugu muhiimsan culimada looga tago laakiin haddana hadda waxaa soo kordhay waxyaabaha ganacsiga la xiriira oo ganacsatadu marar badan baa khilaafaad dhex mara mana jecla inay muddo dheer maxkamadda ku jiraan marka iyaga laftooda waxay u sahlan inay tagaan sheekhan culimada ah saacadaha intuu ku dhageysto dacwadii markiiba go'aanka degdega u soo saaray xafiisyadan kolkaa shareecada ku salaysan maxaa caqabaday leeyihiin maxay faa'iido leeyihiin haddii si gudboon faa'iidadoodu waxay dhaqanka kala mid yihiin degdega waxay dhaqanka kala mid yihiin kalsoonida qofku marka shareecada islaamka kugu qaaday qof muslim yahay kalsooni fiican buu ku qabaa xalay labada qof marka xukmiga uu rido inaan qofna ka cadhoonin iyagoo heshiis ay ka wada degdegsiimada kamid jabnaanta kamid oo aanay waqti badan ka qaadanin lacag fara badan ka qaadanin marka faa'iidada xir dhaqameedka kala wadaagta maxaa caqabadaha marka iyaga soo foosay mid kamid filaanta kamid noqonaysa maadaama aanay xoog dawladeed ka dambeeynin kuwooda aan maxkamaddu soo amrin in la fuliyo hawl bay qaadanaysaa marka waxa dhici karta iyadoo shareecada islaamku ku xukuntay gudidii shareecada islaamku inuu ku qanci waayo haddana maxkamadda ka soo ashkateeyo waxa dhici karta mararka qaarkood gudidii dhaqanka kula tago haddana gudidii dhaqanka marka waxa la forum fish bay yiraahdaan Afgriisa maadaama saddex nidaam jiro qofkii wax ka fikiray keebaa ay dana marka waxa weeye wallahi dhaqanka aniga ay dano deedna dhaqankiisa kaga dhigo qofkii ama gudida shareecada ay dana oo gud ama haddii laga xukumayo ma inuu maxkamaddan tagay kuma ma qancin waxay wadaadadu yiraahdeen because sharci inoo yaalo ku qasbaya go'aanada gudida culimadu soo saartay in la raaco ma jiro halka gaabis baa ka jiro qawaaniinteenu waxa la sameeyay dhowr iyo 70 xeerarkiina madaniga la sameeyay oo nidaamyadan hadda casriga ah ee garqaadida ma waafaqsana taasina waxa caqabada ay leeyihiin marka xoogii fulineed dawladnimo ayaan ka dambeeynin iyaga iyo dhaqanka mid kale waxay kala wadaagtaa dawladda oo sida aanay dawladdu meel walba u joogin baan culimaduna ugu fidsaneen dalka oo dhan culimada casriga waxay u badan yihiin magaalooyinka waa u badan yihiin marka miyada culimadii way ku yar yihiin waxa laga yaabaa tuulooyin faradhan oo fara badan in hal sheekh joogo oo wax meheerin kara ama dadka maaragtay arrimahooda shareecada ka qaadi kara marka taasina waxay xoojinaysaa dhaqanka marka haddaad eegtid boqolleyda dadka ku kala baxa dhaqanka ayaan anigu odhan karaa baa ka badan marka la isku daro dadka maxkamad iyo shareeco ku kala baxa dadka intiisii badneed dhaqanka ayaa u dhow oo dadka siiba miyiga iyo tuulooyinka jooga
horta saddexdaba mid bay ka sinaanayaan saddexdaba inta badan waxaa u badan dadka garta qaadaya waxay u badan yihiin dadka wax haybsooca ayay u badan yihiin qofka bini aadamkana fikirka nololeed ku soo noolay haddaanu iska saarin go'aamadiisa way qaabeeyaan hadduu takoor aaminsan yahay hadduu dadka liidayo way saameynayaan marka taa way ka siman yihiin waa mu baahan in la raaco waayo waxa laga yaabaa qofkan garsooraha ahina hadduu haybsooco yahay oo fikirka qadan aaminsan yahay oo loo yimaado inaanay fikirkiisii keenaynin maxkamadaha iyo booliiskana kuma badna beelaha la haybsooca nidaam cad oo qoran oo dawladeed oo ka yaalaana ma jiro matalan oo la leeyahay haddii qofka booliiska ama qofka maxkamadda ama xiraalinta ay qof haybsooco ama uu la dhaqmo si liidashaa tallaabooyinkaasaa laga qaadayo inaad soo ashkataysaa kuma yaalaan taas way keenaysaa talabaad kalsoonidii ma weyda maadaama muddo dheer nidaamka dawladeed uu soo takoorayay ama aan wax ka qabanaynin waxaa laga yaabaa qofka beelaha la haybsooca inaanu ku dhiiran inuu tago maxkamadda u arko inay tahay goob haysocdo dhaqankuna saan sheegay waa meelaha ugu daran waayo waa meel aad u adag oo conservative oo ku kakan dhaqanadii hore haybsooca ahaa xafiisyada shareecada markaa haddii shareecada sidooda loo reeco shareecada waxay ku salaysan tahay sinaan sida dastuuradu ugu salaysan yahay sanaan laakiin iyada laftigeeda waxaa ku badan dadka ka soo jeeda beelahaas marka maxaa xalku noqonaya inay laba mid weeye in dadkan garta qaadaya saddexda dhinacba ay noqdaan dad og oo aan dafirsanayn jiritaanka haybsooca waayo dafiraadda qofku dafiro oo yidhahdo dhibaata ma jirto waxaa meesha ka saartaa inaad aqoonsatid dhibtan oo aad dabeedna aad qaabatid tallaabooyin proactive ama tallaabooyin hore oo aad dadka u fudeydinaysid waayo marun helidda cadaaladdu accessku wuxuu doonayaa in albaabku uu noqdo mid cid waliba ka soo geli karto hadday jiraan kolkaa waxta qofka cidhiiraya oo takooraya ama aan u fudeydinayn ama aan xaafaddiisii matalan ka jirin booliiskii maxkamaddii aan xaafaddiisii u dhoweyn ama qofku yaqaano deegaankiisii ka soo jooga aan maxkamaddii fadhiin garsoore ahayn ama xiraaliye ahayn ama booliis ahayn qofka maran heliddii cadaaladdu way ku adkaan sida haweenka oo kale hadday markay istaado saldhigga tag ka waddada u horeeya fadhiya ilaa kawshaya ni yahay oo kuya maxaad rabtaa ay doonaysa inay kursi report garayso way iska noqonaysa because ku odhan kari mayso ka qajilaysaa raggan ku odhan kari mayso waa la soo kuslaama waxaasa ay ku dhacay laakiin hadday gabadh aragto waxa laga yaabaa inay ku tahdo dhibtaas ay ku dhacday maxaa yeelay hadeedna gabadhii ay hagto marka waxyaabaha u baahan wax laga qabto weeye talabaadna waxa weeye beelaha la haybsooca mar walba inay xasuusnaadaan jiritaanka saddexdan waa inaad xasuusnaataa jiritaanka sharcigan waxay keenaysaa inaad ka fikirtid halkee baan geystaa xal marka taasaa muhiima ma guddida shareecadan ula tagaa mashaakilkayga oo aan ku buuriyaa inay shareecada islaamka ay raacaan shareecada islaamka waxay weyneynaysaa qofnimada iyo aadantinimada ee dadka iyo haybtooda awoodda ma saarayso mise maanta waxay dana booliiska iyo maxkamadda haddaad kolkaa xusuustaasi jirto ama ogaalkaasi jiro adigu lafteedu kala doorasho fiican baad samaynaysaa marka mar walba inaan ku dhiirigelino beelaha haybsooca waxa weeye inay ogaadaan jiritaanka nidaamyada kala duwan hadba ka u dantaana markaa ay aadaan sida dadka kaleba hadba ka u dantaa ay aadayaan mid lagu riixin iyaga waan mid lagu jiidan oo qofka ay hayaan isagu aanu ku jiidanta uu dan u arko matalan hadduu qofkan ay hayaan uu beelaha kale ka soo jeedo isleeyahay maxkamadda ku wanaagsan oo hadduu doon ka lacag badan yahay matalan oo isleeyahay aduu lawyer saraad qabsan kartaa nidaamkaad kala taqaanaa midin adeerkaabaa jooga waa inaadan okay walahi aniga waxay iga wanaagsan inaan u tago sheekh dirar oo idhahdo sheekhow ii baadh kitaabka anigu ma garanayo beelahan iyo waxaana ku murmaysaan waan u sheego u caddeeyo jiritaanka dhibaatada mise waxay wanaagsan maxkamadda mar walba inay taasi jirto laakiin saddexdu anigu fikirkayga way ka midaysan yihiin in nooc haybsooc qalbigooda ku jiro saddexda waxa looga bixi karayaa saddex arrimood oo muhiima mid waa wacyigelin ballaaran oo dadka wax haybsoocaya la ogeysiiyo haybsooco xaaraantinimadiisa sharci iyo kiisa diineed laba in dawladdu soo saarto hanaan qoran iyo nidaamiyo lagu ribood garayn karo cidda wax haybsoocda tallaabo sharciyana lagaga qaadi karo haddaan anigu garsoore ahay ama qareen ahay oo qof aan ula hadlo ama ula dhaqmo si haybsoocnimo ah oo hadda maanay jirinin nidaam tallaabo laygaga qaadi karaa sidee qofka dhibanaha ay kolkaa ugu soo dhiiranaya maxkamadda iyo cadaalad kuma soo dhiiranayo laakiin haddii nidaam caynkaas soo qoran jiro reportina qofkii uu sheegaya xonay kan ugu haybsooco tallaabana lagaga qaadi dadka shaqooyinkooda ku waayaan because arrimaha haybsooca haddaan tallaabo adag laga qaado oo la xanuujin dadka sameeya sharciyan siba dadka dawladnimada ku jira dadka qaar waa dad shacab oo muddo qaadanayso inuu ka saaro laakiin qofku markuu dawlad noqdo booliis maxkamad waa inuu noqdaa neutral dhexdhexaad waa inaanu bulshada wax kasta ay ku kala duwan tahay aanu si nabasagu soo hadal qaaday afkiisa ka odhan ficil ka odhan muuqiisa ka noqon ama qabiil ha ahaato ama mabda siyaasadeed ha ahaato ama haybsooc iyo fikrada kale ee la midkaa noqoto marka dawladdu waa inay tallaabooyin adag qaada siba baarlamaanku anigu waxaan qabaa inay tahay inuu shuruuc ka soo saaro guddida cadaaladda waa inay ka soo saarto nidaamyo garsoorayaasha ku waajibinayso oo garsooraha qaladka caynkaas la sameeyo guddida cadaalad shaqada kaga erido ayay naga tahay saddexaadna waxa weeye in cadaaladda loo dhaweeyo deegaanadaas oo saldhig booliis oo rasmi ah laga furo matalan oo maxkamad degmo laga furo
ila duruuf gaar ah baa jirtay ma oran kartid maxkamadda degmada kale ha lala wadaago laakiin markaad maxkamaddii degmo ku soo dhaweysid qofkii u dhow yahay wuu ku soo dhiiranaya kolkaa inay dumarkii dacwadihii la tagaan inay dhaxalkii isula tagaan ay dadkii ku soo dhiiran karayaan ma ogaalkii ma jirto cid inta la haybsoocay dacwadoodii loo qaaday haybsooca darteed la leeyahay qofkani wuxuu dhibana u yahay haybsooc shuruucdiyaan jirin shuruuc cadcad oo qeexaysa haybsoocii ama takoorkii sheegaysana tallaabooyinka la qaado wadamada sidaynoo kale ah dhibaatooyinkan haybsoocay takoorku ka jira nidaamyadaasay soo saaraan marka qofkii bay u sahlaysaa definitionkii baynu fahmayna qeexidii maxaa haybsooca tallaabadii laga qaadayay iyo ciddii qaadaysay marka dadku way ku dhiiranayaan markay dadku ku dhiiradaan dacwada caynkaasoo fara badan gudbiyaanna dadka wax haybsoocaya way isilaalinayaan qofkii markaa xukuumadda iskale iyo baarlamaanka dowladda Soomaaliland waa mas'uuliyad qodobka 8aad ee dastuurka Soomaaliland baa waajib ka saaraya in la qaado tallaabo kasta oo takoorka iyo haybsooca lagu tirtirayo waa dhaqan xun oo qalafsan oo ay tahay in la tirtiro dastuurkaana ku waajibinaya qaabka loo tirtirayana waa in siyaasado iyo shuruuc iyo tallaabooyin la qaado in afka laga yiraahdo haybsooc waa qalad ma because haybsooc waa qalad kaliya kuma dhamaan karayso aan waxaan ku talin lahaa nidaamka marin helidda cadaaladda ama access justice wax weyn laga bedelo maanta sida cadaaladdeenu u qaybaysan tahay si guud isku duubo waa mid u fudud qofka lacag haysta iyo qofka connection iyo xiriir leh ayaa u fudud qofka soo faqiira qofka soo la haybsooco dumarka miyiga tuulooyinka dadkaas oo dhan waxay noqonayaan cadaaladii way ka fogaanayaan inay helaan marka cadaaladii waxay noqonaysaa qofka magaalo jooga lacag haysta wax fahmi kara aqoon badanna leh beelihiisuna xoog weeye marka taa weyn wax laga bedelaa waa in la fidiyaa cadaaladda fidin expansion lagu sameeyo waa in miyada la geeyo tuulooyinka la geeyo beelaha haybsooco loo dhaweeyo waa in la dhigaa ka mid noqosho la abuuraa la yaa cadaaladda iyo garsoorka ka maqan hadee yaa ka maqan oo in ku jirin oo ay tahay in lagu soo daro way mar walba dad fara badan oo kala duwan cadaaladda ku jiraan waxay soo jiidaysaa ku dhiirashada inay dadku cadaaladda u soo doontaan cadaaladda waji taqaanid baad u tagaysaa oo garanaysid laakiin cadaaladda aad garanaysid ka baqaysid ma tagaysid because cadaaladdu inay dabacsanaataa waa inay fududaataa waa inay naxariis leedahay waa inay dadka u dhowdahay waa inay jaban tahay cashuuru mid ka mid ah mashaakilka ayay ka mid tahay matalan bulshada haysta hadday jaga isku qabsadaan magaalada dhexdeeda ku yaala beelaha labsooco dhulka ugu qaalisan magaalada oo dabeedna la useedo ashkato oo leeyahay waa inaad bixisaa $10,000 ama $20,000 ma heli karaya laakiin waa in la sameeyo nidaam markiiba la fahmi karo oo la oranayo cashuurta waa laga dhaafaya way maaha nidaamka maxkamaduhu inuu noqdo nidaam lacag uruursi ma dowladda cashuur badan ka hesho way noqotaa mid dadku ay ku soo dhiiradaan marka waxaan la dib u qaabayn ama dib u habayn sal ballaaran oo ujeedadu tahay qofka hadee qofka maaha dhismayaasha dhismo weyn maaha badinta maaha waa inay tahay qofka adeeg bixiyo weeye haddaad u fiirsatay shirkadaha telefoonada inaga iibiyo adeeg bay inaga bixiyaan adeegga waxay jecel yihiin inuu dhawaado si inuu soo gallo haddii adeeggeedu kaa fog yahay ma tegaysid laakiin haddii adeeggeedu ku dhow yahay dhowr bolo ku jiro waad u tegaysid marka nidaamka cadaalad mar walba uu fido oo dadka ku dhawaado dadku cadaalad bay soo doonanayaan mar walba ka durko ka kanaadona dadku way ka fogaanayaan horta anigu waxaan ahay dadka aaminsan in saddexda nidaam jiritaankoodu aanay dhibaato ahayn way maadaama inaan nidaamkeenu dawladeed dalka oo dhan ku wada filin waxa muhiim ah dadku adeeg cadaaladeed kasta heli karaan inay helaan inta dawladnimadu filayso hadba intii dawladnimada la fidin karo la furo marka qofka shareecada xafiis shareeca garta u qaadi karaya u garnaqo kii dhaqan u garnaqi karaya u dhaqo kii dawladnimo gaari karaya ana dawladnimada gaar waa maxay fariinta aad u dirayso baylaha la haybsooco si ay u doontaan cadaalad ay rabaan ama ay dacwadahooda ay u gudbistaan waxaan bulshooyinka la haybsooco ku dhiirigelin lahaa si weyn inay ku soo dhiiradaan kuna adkaystaan in nidaamka cadaaladeed ay cadaaladu soo doontaan kuwooda iska hortaaga ama diida ama aan u qaabaysnayna ay ku adkaystaan inay ka rafcan qaataan kuwa kale u tagaan waa gidaarkaas wuxuu ku jabayaa marka dad badan ku soo yaacaan oo yiraahdaan cadaalad baan xaq u leenahay waan doonaynaa dimaan ay sameeyaan marka inay cadaaladda soo doontaan hadday saldhig tahay hadday maxkamad tahay hadday tahay xeer ilaalin tahay ku adkaystaan u samraan si uu nidaamku isu bedeli karo reform u iman karo loo aqoonsan karo dhibaatada jirta ayaan kulisay haddii taasi iman weydo wax dhici karta dulmigu inuu sii xoogaysto oo cid kale ay sharciga gacanta ku soo qaadato وهاجاك داودان intaas waxaan ku soo afmeeraynaa qaybta labaad ee barnaamijyada marin helidda cadaaladda oo ay iska kaashadeen EAG wasaaradda cadaaladda isla markaasina ay fulinayso hay'adda maxalliga ah ee Aadam Academy